aan ku bilaabay saad warkeennaba ku maqlayseen xidhiidhka ganacsi iyo diblomaasiyadda ah ee dhowaan u furmay Somaliland iyo Kenya ayaa lagu tilmaamay jidka horseed u noqon lahaa aqoonsi caalami oo jamhuuriyadda Somaliland ay ka hesho beesha caalamka. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Kenya December 2020 kadib markii uu martiqaad ka helay madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaana labada madaxweyne kala saxiixdeen heshiis ka kooban dhowr qodob oo sii xoojinta xiriirka diblomaasiyadda iyo ganacsigu ugu waaweyn yihiin. waxaana heshiiskaasi lagu xusay in dhammaad bishan Maarch ay Kenya xafiis diblomaasiyadeed ka furanaysa Hargeysa iyo duulimaadyada diyaaradda Kenya Airways ka bilaabayso garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. warbixin lagu daabacay warbaahinta East African Business Week ayaa lagu sheegay in xiriirka cusub ee jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladda Kenya ay keenayso natiijooyin la taaban karo oo ku wajahan wadadii ay Somaliland u mari lahayd aqoonsi caalami ah iyadoo ay dhowdahay xilligii ay dawladda Kenya safaaradeeda ka furan lahayd dalka Somaliland. wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in jamhuuriyadda Somaliland ay qaaday jidkii nabadda, dawlad wanaag, dimuqraadiyad, doorashooyinka iyo isku wareejinta hoggaanka dalka si xasilooni ah oo nabdoon, iyadoo dhinaca kalena sheegtay in jamhuuriyadda Somaliland ay tixgelinayso wakhtiga saamaynta Kenya ee midowga Afrika isla markaana ay xoojinayso xiriirka Kenya kaasi oo Somaliland u horseedaya riixitaanka ayaka tashigooda. warkan ay baahisay East African Business Week waxaa lagu sheegay in sanadkii 2020 ee la soo dhaafay uu ahaa mid ay Somaliland ku tallaabsatay guulo waaweyn oo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed isla markaana kiiska qadiyadda madaxbannaanideedu uu helay golayaal caalami ah oo kala duwan oo ay ku soo bandhigi karto afkaarteeda iyo xaqa ay u leedahay in ay noqoto dal madax bannaan oo ka mid ah dalalka beesha caalamka. warbaahinta East African Business Week ayaa waxa ay soo xigatay qaybo ka mid ah khudbad sanadeedkii madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay golayaasha baarlamaanka taas oo madaxweynuhu ku soo qaatay xiriirka u dhaxeeya Kenya iyo Somaliland. in Kenya madaxweynuhu وين مرتي قاضي يدنا وحين نحمري وحين كصوبحي يكون من كيجوا هاي سانو يدك علمايا فهو حن شيء waxaana warbixinta lagu xusay siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland ku dhisan tahay daris wanaag, nabad iyo iskaashi caalamiya. waxa kale oo madaxweynuhu yiri soddonkii sano u dambeeyay fagaara kasta oo tagniyo dawlad kasta loo hadlaa waxa inagu xujeynayeen ama ay nagu gudbayeen xaalkiinu waa xaal Afrika ah midowga Afrika iyo Afrika ayaa anaga nooga farquluwan qaaradda tagtaaba ama daacada ka ahaato ama gar ha ahaatee muddo taal inagu warjo saadartay waxaanu qaaday jidka ah in Afrika laga hawl galo deetana sanadkii u dambeeyay xoog badan baan saaray Afrika san ugu yeeran lahayd saaxiibo cusub waxaanu ku buurisanay inaan dhammaan dawladaha Afrika horta waraaq qoraal oo u sharxaysa Somaliland waxay doonayso iyo inay xaq u leedahay ay ku cadahay inaanu u diray dhammaan madaxweynayaasha geeska Afrika meelajooda dhammaantoodna ay heleen. waxaa naga soo noqday in naga aamusto waa jirtaa in badan ayaa naga soo weydiisay macluumaad intaa ka badan oo u baahatay tafsiir badan in loo soo gudbiyo saaxiibo ku qancay ama hore u ogaa inay Somaliland xaq u leedahay aqoonsiga dawladooda aanay ahayn boos iyo waxay ku fadhidaan in badan oo weyn taageero ka helay. warbixinta East African Business Week News ayaa lagu soo gabagabeeyay bishii December ee sanadkii la soo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu booqday dalka Kenya waxaana wada hadal la yeeshay madaxweyne Uhuru Kenyatta halkaas oo ay ku heshiiyeen labada madaxweyne in xafiiska xiriirka ee Somaliland ku leedahay Nairobi laga dhigo qunsuliyad isla markaana la furo qunsuliyadda Kenya ee Hargeysa dhamaadka bisha Maarch ee sanadka 2021 labada madaxweyne waxa kale oo ay isla afkarteen in duulimaad toos ah laga bilaabo Nairobi oo la geeyo caasimadda Somaliland ee Hargeysa isla markaana la iska kaashado dhinacyada horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo beeraha sidaas ayaa lagu sheegay warbixinta.